بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkaan ku suganahay waa Dansom TV barnaamijka maanta aan idin soo gudbin doono waa barnaamij ku saabsan barnaamij siyaasadeed barnaamijkaas waxaan wareysi la yeelan doonaa xildhibaan Ali Nuur oo degan wadanka Denmark gaar ahaan magaalada Aarhus ee wadanka Denmark xildhibaan ku soo dhawo TV-ga Dansom TV aad iyo aad baad u mahadsan tahay Faisal iyo Dansomba iyo rag khiyaarta soo qaban qaabay barnaamijkan aad iyo aad baan maartay mahadcelinayaa maartay aad marlabaad ii yeerteen si aan shirkan aan barnaamijka uga qayb qaato waxaan jeclaan lahaa sidaas kale adigana waxaan ku leenahay soo dhawo TV-ga Dansom TV waxaan jeclaan lahaa in maanta saan la soconno wadankan waxaa ka jira xisbiyo badan xisbiyadaas Soomaalida aad iyo aad uma kala fahamsana mar walba waxay maqlaan doorashooyin ayaa ka jiraan hal mar ma noo gudmari kartaa inta xisbi ka jirta wadanka Denmark waad mahadsan tahay Faisal haddaan hoos u dhex galno xisbiyada way kala duwan yihiin maalin walba waxaa laga yaabaa sanad walba inay soo galaan xisbiyo cusub inay soo galaan yaa laga yaabaa laakiin xisbiyada joogtada ah oo sida joogtada ah weligood u jiri jiray waxaa ka mid ah xisbigan loo yaqaano social democrat kuwa loo yaqaano waxaa kaloo jira xisbi kale oo isaguna maaragtay qadiimi ah oo loo yaqaano conservative baa loo yaqaanaa waxaa kaloo jira xisbi kale oo isaguna venstre la yiraahdo iyo waxaa kaloo jira xisbiyo kale oo ayaguna maaragtay dhinacan xiga bidixda xiga ayaa jira ayaguna la yiraahdo English kuwa la yiraahdo ayaa jira waxaa jira kuwa la yiraahdo SF anaa hoos baan u geli doonaa haddii la yiraahdo markii aan ka hadlo arrintaas waxaa kaloo jira xisbiyada isku dayaya maaragtay inay laba dhinacba ay raacaan sida radical venstre ayaa jira waxaa jira xisbiyo kale oo iyaguna maaragtay jira dhinaca run ahaantii midigta u sii fog ayaa jira oo ay ka mid yihiin Liberal Alliance ay ka mid yihiin waxaa ka mid ah muxuu ahaa xisbiyo badan oo maaragtay Dansk Folkeparti ay ka mid yihiin ayaa jira marka haddaan xisbiyada hoos u dhex galo haddii aad maaragtay aan soo gaabino xisbiyadu waxay u kala qaybsan yihiin markaad siyaasadda aad fiiriso hadda siyaasadda Amerikaanka markaad fiiriso waa laba xisbi kaliya laakiin run ahaantii markaad u dhambagashid aad fiiriso waxaad arkaysaa inay u egyihiin siyaasadda Denmark oo kale sida xisbiyadu u dhisan yihiin waxaad arkaysaa social muxuu ahaa democrats kuwa loo yaqaano waxay leeyihiin laga bilaabo English laga bilaabo ilaa la yimaado venstre waxaa la isku yiraahdaa run ahaantii democrats la isku yiraahdaa Republican kuwa la yiraahdana waa dhinacaas waxay xigaan dhinac kale xigaan maaragtay sida conservative-ka iyo kuwa maaragtay Donald Trump oo maaragtay qaybta ka yahay Denmark markaa fiiriso yani run ahaantii wadankan ujeedaan waxaa soo dhisay run ahaantii xisbiyo maaragtay faraha lagu tirin karo oo ay ka mid yihiin xisbiga social democrat ka tirsan yahay intaasoo sano soo jiray ayaa maaragtay waa xisbiga ugu weyn run ahaantii markaa u fiirsana Denmark xisbiyada ka taliya waana xisbiga hadda maamulka ra'iisul wasaaraha wadanku uu yahay waa xisbiga anigu aan ka tirsanahay social democrat ayaa la yiraahdaa waana xisbiga ugu ballaaran run ahaantii xisbiyada iyagu maaragtay xisbiga siyaasadiisu maxay tahay waxaa weeye xisbiga siyaasadiisu waxaa weeye dhinaca waxay tixgeliyaan xagga bulshada ayay tixgeliyaan waxay tixgeliyaan xagga maamulka maaragtay maamulka guud ee wadanka run ahaantii markaad fiiriso degmooyinka waxa culayska la saarayo dadka daciifka ah markaad fiiriso oo maaragtay baahi ay hayso dadka maaragtay qof kasta oo maaragtay asagu dhibaato ay haysato run ahaantii culays la saarayo qaybta bulshada qaybta socialka markaad fiirisid ayay culays saaran waana xisbiga maaragtay dadka intoo badan ay maaragtay ay ka qayb qaataan markaad fiiriso waxaa kuu yimid xisbiyadan kale oo dhinac ka sii xiga bidixda laga sii xiga waxaa ka mid ah xisbigan English ayaa ka mid ah haddaan isaga kuu soo qaado xisbiga English yani waagiisii hore suu hadda yahay ma ahaan jirin xisbiga English wuxuu ahaan jiray dadka xubinta ka noqonaya run ahaantii waa inaysan ahayn dad diin haysta atheist ayaa ka qayb qaadan jiray dadka atheistaha la yiraahdo waa inay atheist noqdaan waa inay noqdaan tan kale waxaan loo yaqaano anarchist waxaa wadada aan xukunba ogolayn mujadaan in maaragtay loo taliyo saasay ahaan jirtay wax weyn baa iska bedelay run ahaantii si u soo socdeen laakiin weli saasay tahay waxa weeye xisbiyada maaragtay activistiyaasha maaragtay oo haddii hadda la samaynayo waxaad aragteen mararka qaarkood inaad xasuusteen ma ogiyo ra'iisul wasaarihii hore
waddanka ansfo qasmus isagoo kasoo baxaya maaragtay baarlamaan kasoo baxaya in lagu shubay muxuu ahaayeen riji lagu shubay madaxa looga shubay dadka ku shubay waxay ahaayeen maaragtay English list ahaayeen sababtu waxaa weeye waa dad ayagu maaragtay raacsan dhinacaas bidixda raacsan yihiin waxyaalaha xisbiga Venstre oo ku taliyana maaragtay run ahaantii kasoo horjeeda marka English listuhu waa dad isbedelay hadda English listaha waxay ku jiraan degmada hoose ayay ka tirsan yihiin hadda aniga aan ku jiro waxay ka tirsan yihiin baarlamaanka ayay ka tirsan yihiin laakiin saas ay yeeshee si kastaba ha noqotee marka keliya oo ay hadda soo raaceen inay maaragtay budgetka waddanka dhaqaalaha waddanka muxuu degmada ay ka qayb qaataan waa sanadka keliya inta badan waxa kuma aysan jirin run ahaantii yani magaaladan ujeedaan Aarhus degmada Aarhus waa magaalada labaad weeye hadda runtii waxaa dadka jooga waxaa weeye ilaa 400,000 ayay gaareen hadda ayay madaxii gelinayaan 25 sano kadib hadda markii la gaarana waxay sii dhaafayeen 1 milyan iyo wixii kor u sii dhaafa Soomaalida degan ilaa iyo waxaa jooga ilaa iyo 5,000 oo qof oo Soomaali ayaa degan qiyaastii dadka degan oo Soomaalida halkan ku nool magaalada labaad ugu maartay weyn Denmark markaad fiiriso maamulkan weligeed waxaa haysan jiray xisbiga loo yaqaan Social Democrat 84 sano meelahaas marka la loo raaco waxaa ka ahaa oo Masar ka ahaan jiray maartay Social Democrat ayaa ahaan jiray markale ayaa jirto ay ka dhabqiyeen Venstre ka dhabqiyeen ay soo gashay gabadhii Louise Geeda iyadoo ay noqotay oo Masar ay noqotay marka saas weey English listu noocaas waxa ku soo har SF2 waxay u dhaxaysaa Social Democrat iyo waxay u dhaxaysaa Social Democrat English list iyo Social Democrat u dhaxaysaa ayaguna siyaasad kale haystaan oo dhinacan bidixda run ahaantii yani siyaasadooda marka u fiiriso dhinacna wuxuu raacsan yahay Social Democrat uu soo dhow yahay qaarna waxa moodaa maartay inuu dhinacan kale xigo sida la isu doorto ay isu doortaan ayagu siyaasad marka fiiriso waxa loo yaqaan maartay party ayay leeyihiin party muxuu ahaa upscaling marka la isdooranayo yani qof baa la dooranaya oo leeyahay qofkaas ayaa la marwan noqonaya qofka labaad wuxuu noqonaya aduu noqonaya qofka saddexaad afarta qof haddii laba qof soo galaan labada qof oo liiska ku yaala ayaa loo doortaa annaga saas maaha annagu waxa sida upscaling baa la yidhahdaa qof walba codku keeno ayuu leeyahay maaragta ayuu kusoo gelayaa meesha marka dhinacaan horta haddaan kuusoo taabto saas weeye waxaa kuusoo haray qadhikeel yani waxa loogu bixiyey qadhikeelku runtii qadhikeel Venstre waxa loogu bixiyey yani waxa way waagi hore Venstre ayay kasoo baxeen ujeedin xisbigan loo yaqaano conservative-kana marka waxa la oran jiray hooya ayaa la oran jiray waagi hore yani xisbiga Venstre runtii waa mid aad u balaaran laakiin kasoo leeyahay Venstre siyaasadooda waxay raacsantaa dhinaca midigta ayay raacsantaa laakiin magaca waxa loo yaqaano magacahan waxay isticmaalaan waa marka Venstre waa magac lagu magacaabay laakiin siyaasadooda marka fiiriso waxay raacsan yihiin maartay dhinaca midigta raacsan yihiin yani waa dadka la yiraahdo maartay inta badan lagu riixo la yiraahdo Venstre ma run ahaantii waa inay dhinaca midigta ka sii xigaan lagu sii riixo la yiraahdo dadka ajaanibka ma ogola dadka ajaanibka inay halkan ku noolaadaan xataa daan ogoleen baa jira sida Danskford dalka Bati oo kale oo aan maartay xataa aan asxaab u fulaynin maartay qof kastoo ajaanib sababta siyaasadooda ayaa waxay ku dhisan tahay run ahaantii dhinaca ajaanibka kaliya ku dhisan tahay markaad u fiiriso xag waxbarasho markaad tiraadina waa dadka ugu tacliin liita markaad fiiriso yani intooda badan tacliin dheer ma laha dadkan laakiin markaad fiiriso xagga tacliinta markaad fiiriso Social Democrat iyo conservative-ka iyo kuwan loo yaqaan maartay Venstre iyo conservative waa dadka maartay iyo qadhikeelka liftooda qaar ayaa jira sababtu waxay ahaan jireen ayaguna obqo ayay samayn jireen waagi hore marka loo fiiriyo xagga waxbarashooyinka sida jaamacadaha oo kale iyo arrimaha la xiriira conservative-ku wuxuu muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa qadhikeel Venstre wuxuu kaga duwan yahay kuwa kale qadhikeel Venstre uu dhexdu yaalaa run ahaantii yani waxa weeye laba dhinacba inuu raaco raba hadda haddii for example dowladdu halkan ay Social Democrat ay maamulka qabsato waxay jecel yihiin maartay inay soo galaan dhinaca waa sida ay soo galeen waagi hore waxay ka tirsanaan jireen dhinacan kale ayay ka tirsanaan jireen oo maartay hooyo Venstre ayay dowladda kula jireen markaas hadda dhibaato weyn baa haysata run ahaantii conservative muxuu ahaa qadhikeel Venstre hadda means moolinkii
hadda la fiirinayo haddii la tijaabiyo hadda ay doorasho dhacdo meeqa qof bay kusoo geli karaan marka la yidhaahdo waxaa hoos u dhacay waxaa hoos u dhacay hadda waxay joogaan run ahaantii lambarraday haysteen waxaa weeye 4.7 ayay maaragtay ayay joogaan macnaheedu maxay tahay waxaa weeye 2 waa lagu soo galaa oo jeeda 2 hadday ka hoosaysid waad hoos baad u dhacaysaa ma soo geli kartid baarlamaanka folkatiin qayb ka noqon kartid run ahaantii ayaga run ahaantii dhibaato hadda kala bor misaan ugu sareysa dee 2 ugu hoosayso hadda waxaa ugu sareeya xisbiga aan ka tirsanahay waa ilaa 32 meelahaas qiyaastay waa xisbi weyn weeye muujida oo social democratic waxaa kaloo hoos u dhacay run ahaantii xisbigan kaloo loo yaqaano Venistra oo weligiis ahaan jiray koob iyagu hogaamiya dadka maaragtay mucaaradka hadday mucaarad yihiin hadday dowlad yihiin ay dowladda ayaga aad bay hoos u dhaceen waxaa hoos u batay kor u batay hadda xisbigan loo yaqaano conservative-ka ayaa wuxuu marahayaa ilaa iyo 15% boqolkiiba 15 kuwaana waxay marahayaan wax aad iyo aad u hooseysa ilaa iyo aan umalayna inay tahay 11 mise 12 galaada loogu noqon karaa waa la fiirin karaa wax isbedeli karaa weeye muujida marka maamulku habkaas siyaasadda English kuwa la ayaga maxay qabarsan waa English kuwii hore aan ka hadlay soo ma jeedin oo ahayd dhinaca waxay jiraan dhinac bidixda ayay jiraan waxa weeye waa kuwan ka hadlay hal jir camal aan ku dhahayay anakistaan ku dhahayay muujidi dhaqan madiin meestaan ayagu ujeedo kala ma lahan hadda for example dowladda ayagu ma kama qayb qaadan karaan ilaan hadda dowlad haddii ay dhacdo ma jirto dowlad inta la qabtay dhahaysa waxa soo galaya English lista ayaa soo galaya mid walba English waa laga qarraya sababtu waxa weeye markii dhaqaalaha la soo jeedo dhinaca budgetka marka la soo jeediyo kale waxa weeye kama qayb qaadanayaan ilaa waxa loo baahan in lagu ballamo hadda ka soo qaad xagga waxbarashada waa in lagu ballamaa oo ay wax joogta ay noqotaan mar walba dhaqanaynin soo jeedi ilaa 5 sano 6 sano 7 sano qaarkood 10 sano qorshe ah waa in la sameeyaa ayuu kuma jiraan soo jeedi marka waxa weeye haddii hadda for example way dhacdaa marmarka qaarkood in la soo jeediyo fikrad ah la yiraahdo waxaan la sameynaya inta badan run ahaantii waxa ka hor yimaada maaragtay ana talooyinka badan una siiyo waa ka hor yimaada marka inuu isla dowlad ma qaban karo dowladda ma qaban karo sababtu waxa ka cararaya kuwa kale oo la shaqeynaya ayaa dowladda ayaa diidaya soo jeedi group haysta waxay soo diidayaan waxa weeye fikrad isku ma raacayaan ilaa waddanka waxa loo baahan yahay in la fiiriyo si kale loo kordhiyo waddankii la ballaariyo soo jeedi marka xisbiyada hadda la isku yani la og yahay in maaragtay isku halayn kara siyaasadooda oo waxaa kamid ah xisbiga social democratka kamid ah waxaa kamid ah weligood ahaan jiray conservative-ka ayaa kamid ah waxaa kamid ah maaragtay Venistra ayaa kamid ah saddexaas xisbi waa saddex xisbi ugu waaweyn yani weligood waddanka soo dhisi jiray inkastoo social democrat hadda ugu yahay okay waxaan jeclaan lahaa su-aashii labaad inaan ku weydiiyo maadaama xisbigan social democratic inta aad ka mid noqonin xisbi hore aa ugu jirtay marka sababihii xisbigaas aad ugu soo baxday oo xisbigaa usoo gashay ayaa waxaa rabaa warbixin yar inaan naga siisay waa kaa siin karaa waxaa dhacday 2000 iyo 4 May mise 3 saan u malaynahay inay 4 baan malaynahay inay iyo 3 ba saan anugu hadda ay kala muusanta yaa waxaa ila soo xariiray Louis Gedo oo ahaan jirtay bomesterkii maanta haystay waddanka waa marka kaliya oo social democrat laga dhaqeeyay marka waxa iyaga ayaa soo wacday oo tiri waxaan rabaa maarta inaan ku sharaxno sababtu waxa weeye waxaan bixin jiray maarta khudbooyin iyo maarta waxaan marka qaarkood meelaha waxbarashooyinka ama wasaaradda tacliinta ama arrimaha la xiriira ayaan waxaan ka bixin jiray khudbooyin la saabsan sida integrationka isdhexgelinta dadka weliba gaar ahaan xagga waxbarashooyinka iskuulaadka macallimiinta xaggooda teeda kale waagay maartay dugsiga macallimiinta ayaan macallinka ahaaba 2 sano ayaan dhigay garanaysaa marka waxa halkaas waxa weeye fikrado weyn bay maartay iyaga markaas ayaga soo xariirtay waxay tiri maartay inaan ku sharaxnaa rabnaa waayahay baan waa sharaxay reerkan kala hadlay iyo wiil ilmaha qaarkood baan kala tashaday ilmaha kala tashaday wiil ayaan kala tashaday waxaa la yiraahdaa maartay Venistra siyaasadooda waa la yaqaanaayo waxay xigtaa dhinacaane maxaa tala anigu midda aniga aan ka fikiraya waxay ahayd see u dhacday dadka ajaanibka ah in maarta xagga shaqada lagu baraarujin oo xagga waxbarashooyinka lagu baraarujin waa mid weyn oo runto dhibaato weyn oo jirtay midda keliya dowladda xisbiga keliya oo markaas culayska saarayay wuxuu ahaa xisbiga Venistra iyo conservative-ka labadaas culays saaray social democrat wuxuu oran jiray okay madaxa loo salaaxi jiray dadka waxaa loo oran jiray haddaan ogaa waa damaan ogaaday ma jeeda dadka inaan la arbushin ma jeeda dadku hadda qof baa laga yaabaa inuu ilaayo 10 sano xataa shaqo u kala lahayn
soo garanaysa marka waxa arrimo noocaas oo kale ayaan ka fakarayay mujido aan ogaaday hadda waagi dambana ay ahayd laakiin anigu siyaasadayda run ahaantii waxay ahaan jirtay social democracy ahaan jirtay weligay waxaan codka siin jiray isbaan aawan haddaa xusuntahay xisbiga social democracy ayuu ahaa ayuu formal jiray weligiis meeqa minister ayuu soo maray inuu aad iyo halkaana laga ka sharxanaana wuxuuna ahaa social democracy isaga ayaan siin jiray garanaysaa marka waxa weeye anigu weligay dhinacayga siyaasadda laakiin maalintaas laiga arbushay ayaan soo galay waan soo galay 2005 ayaan soo galay xisbiga markaan soo galayna waxaan ogaaday run ahaantii xisbiga Venista wuxuu yahay ayaan ogaaday mujida sababto midda dhacaysa waxa weeye dambaa kugu kalifaysa mujida marka qaarkood si aad isu muujisid inaad go'aamo soo jeedisid inaad fikrad soo jeedisid marka fikradahaagu marka qaarkood daan lagu raacin garanaysaa oo aan maartay lagu baraarujinin oo aan lagu dhiirigelin inaad maartay siyaasaddaas aad soo jeedisay inaad maartay aad socodsiin karto haddaan lagu baraarujinin soo ma jeedin waxa weeye mar walba aad qalbi jabaysaa taad qalbi jabaysana maxay tahay xisbiga Venista run ahaantii mar walba wuxuu la tashan jiray Dansk Folkeparti dowlad ahaan markaad fiirisid fikradaha ay soo jeedin jireen oo ugu badnaa waxay ahaayeen oo marka qaarkood xataa xisbiga Venista uu diidi jiray waxay ahaayeen arrimaha la xiriira dadka ajaanibka saan lagu yeelo على ودنك على سعره سان على سعره قفكي عن سعره أنواع سانوي شرعي سوتشيدين رهانتي والشرعي وين رنتي آديات وطاقتي بالشدة كنا إحنا والله ولي بقى عن تك أجانب كا توجدي سوتشيدي ونقف مرتي وحلو أنا كونتنت لفت يل لفت يعني قف مس أدو المبادئ ليه عشان أدو طبعا المالية رهانتي يعني بدأ يبقى سوتشيدي أنا ساعدت دي العوالات الكرة وإلى سن من فرصة العقد كقريصة أنت أسوأ موسى جارني أول واحد هيد المحل العقب على سيا هو يلا العقب على سيا قول يشارك سوالة كبا ساموي ما كل عقد وسيك قريصة وحلا يا قف رياح إلى يتمنى أم ديانش أنا قدام سماعي أنا قدام موت أنا قارهان وصاري مين موجود لكن وحوي وحنا نقول كرامات وأعلن يا مركل العقب بدن المحل العقد على سيا هاي مركل خاركود حسب جالس وحيس من شرين والسوق الرينشلو ونقابتي كسمين شرين هلا سمايو يعني العقب بدن يعني سين مرة سوتشي هذا سيدا عرّك بدل ما دلك رو لما قدم حسوتشي دين بدأ كلام عليه وحوي حتى مركي عند دولة قبصة مرة الله مركي حسب السوشيال ديمقراط وتبقى قبصة وحاسر أبو بابية بدل بابية رومانتي قف فرصة عمله صدق سنة توصل ودنك تشوفين العقد وقارنها وكيف تايساموي هدي ما هذا حسوتشي دين فكرة كلام شرعية ضدك وحتيك حتى آد ما أعرف شو بدلين رومانتي حسب جايجا سوشيال ديمقراط مركو دولة دلوور يجنا waxay sameeyeen bakaraal maartay raadkoodu turtira sababtu wax maartay runtii aad u sameeynahay weey dadka ajaanibka maahan lacagta la jarahay waxyaalaha la sameeynayo waxay aad u sameeynayaan dadka bulshada qorsam hadii aabe iyo hooyo hadii aysan lacag haysanin oo lacagta ku yartahay ama Soomaaliya noqdaan ama Arab noqdaan ama jinsib ama diinish ma noqdaan hataa mujida yani hadaynan aysan nolol fiican aysan ku nooleen ayagu meel ma gaari karaan ilmihiin la arkayaan soo jeedi marka anigu waxaan tixgelinaynaa ruuxantii oo anigu waliba gaar ahaan anigu siyaasadda aan ku dhisan ruuxantii madama ka hadli doono waxyaalaha anaga aan xuleyska aan saaro ruuxantii laakiin waxa weeye waxa ugu muhiimsan waxa weeye in bulshada aan ku noolahay bulshadu inay socoto weey mujida waa inaysan ku jirinin maartay meel dhaqsanayn oo aan go'go'sanayn mujida qaar faqrinimo ku nool qaar aan ilmahooda la tixgelinin waliba dadka loo yaqaan usare dadka maartay waxa laga yaabaa xafadaad ku nooshahay xafadaad ku nooshahay waxa laga yaabaa in dadka degan oo dhan ay yihiin maartay geeto abuurinta geeto for example sharciyada la gaarayo waxyaalahaas oo dhan marka social democracy waa mid uu ku baraarugsan yahay ruuxantii oo culays uu saaro dadka oo dhan waa ogyihiin mujida wadankan waxa soo dhisay waxaan loo yaqaan peasant yel waa dadka duusan shaqo haynin ama wax gaaraan kabayo waxa keenay waxa weeye social democracy okay mid aan jirta waxa jirta dadka qaar waxay aaminsan yihiin because qof bay fikrad aaminsan yahay haddaan la soo macnaha aan gadaal u noqono badanaa dadka waxay aad u sheegaan social democracy waa xisbiga ugu badnaa wadanka Denmark muddooyin badan haystay haddii dhinaca macnaha ajnabiga aan ka hadalno mararka ugu badan ajnabiga waxay sameyn jireen lacag siin jireen waqti yar ayaa iskuul loo dhigi jiray luqadda inay bartaan laakiin dadka qaar waxay aaminsan yihiin in xisbiga Venista oo shaqo abuur uu sameeyo dadkii waxbarashada ku qasbo luqadda ku macnaha ay bartaan guryaha laga soo saaro marka arrintaas ay kula muuqataa idan ma arrintaas horta aan ku sheego arrintaas laba wajibay leedahay ruuxantii
xisbiga Venice marka la yiraahdo ha cariiriyo muxuu cariirinayaa ilaa waxay culays ay saarayaan xisbiga Venice shaqada weyn oo qabtaa waa shirkadaha waxyaalaha beegsamaya shirkadaha loo yaqaano shirkadaha ayay culays saaran sidii ilaa waxay ogyihiin dhaqaalaha waddanku wuxuu ka imaanaya shirkadaha maxay ilaawahayaan for example degmada iyo bulshada maamulka bulshada dadka inta ka shaqeeya hadda for example ows dadka ka shaqeeya ilaa 30 ilaa 35-40 kun oo qof ayaa ows community kaliya ma ahana dadka kale meelaha shaqeeya ma jeedin ma ay ogola hadda Venice oo kale Venice ma ogola waa in dadkaas la yareeyaa ma jeedin waa in dad badan aysan shaqeynin dadku dad badan baa baad mudan oonaya soo ma jeedin dadka for example hal cariiri halka loo diro activate loo diro anu mid aan xisbiga Venice kaga soo horjeeday waxa ugu weynaa ruuxantii waxa weey midaan activate sameeynayo waxaa jira sharciga la keenay social weli activate ilaa dadka laakiin soo ahaan jiray sida hadda ay tahay waji weyn bay ayaga macna markii dadka qaar ay waxyaalaha ay ka hadlayaan socialka hatta dadka daba galaan ma arkina sida socialka ana socialka nooc badan qaar shaqo ku raadinayaan qaar macna la soconay macna noloshada way ka shaqay badan yihiin way ka shaqaale badan yihiin ana finistaqa meelaha qaar hadaa la soconana badana waxay yareeyeen finistaqa meelihii dadkii badnaa dadka ku mashquulay hadaa waxay yareeyeen macna bas stoobyadii shaqaalihii badana kamuna ka shaqeynaya dadka macna qofkii waxa laga yaabaa adiga kaliya hadaa shaqeyn ama xanuunsan ama dhibaato ku haysto in adiga kaliya haysatid shan social aad haysatid mid activate ku diray mid caafimaadka ku diray macna shan social aad haysatid marka waxaas oo way baabiyeen finistaqa laakiin socialka macna way ugu duwan yihiin finistaqa ومستدي يرك كوبينا معنا قف كما أكن شغله ورادنا وحبرشة دي سنة معنا أصلا أنا هدو قف معنا حنوسية هنا معنا أن بريشر صار أساس عن سنين أو معنا إيش وما لسه حنا قف كان واقع نسوق شغله كله مركا سير كله مقطع رهانتي مركا في الصوب لابا هرتا مركا حق الجانب الفيوريو لابا وحول السبب اللي كلام ما أهم ما أعرف فينستخا يسوشيال دي نمبر 1 وحاول هرتا مركا وهرس دقالها هي كاعتاجين فينستخا ومدة كاعتاجين lacagta qofku qaadanayo waa la jaraya bam ma jeedin ilmaha lacagta qaadanayo xataa ilmaha dadka 5 qof ilmaha dhalay mujil lacagta waa la yareynaya mujida hadiiba dhaqaalihiiba laga jaray police secretary-na la taabtay lacagta aad qaadanaysa ay maximum intaan kaliya tahay ma dhaafi karto inkastoo baahi aad u qabtid soo ma jeedin waxa uu horta taas waa mid runtii aad iyo aad u saameynaysa gaar ahaan dadka ajaanibka iyo waxay saameynaysa dad badan oo waxa jira deenisha runtii oo shaqaalahan ay hayso maato laftooduna sida noo kala mujida marka qaarkood dhibaato soo marto ama anu Soomaali hadaan ay dadka ajaanibka waxaan soo maray dhibaatooyin waaweyn soo jeedin waxaan soo maray dagaal baan soo maray waxa weey trauma waxa loo yaqaan ayaa nahaya soo jeedin runtii uma dhigano dadka kale anaga waxyaalo badan baa maarta sensitive bal warayso qof maartay laga yaabo adigu maarta waalidka ama qof ay noqoto أنا قحيت ما صومرين. ستوري من هذا. أنا قحيت ما صومرين، لكن هذا يعني واحد أنا صومرين من أوجه، صوت واحد صومرين تكيل قطن. يعني باتين كده كل الحلقة. وأنا تجي وتانجا يعني تجي وتانجا واحد قلت لي ولا شيء سنة كار. كينيا. أيام وتانجا أيام قلت لي سنة كار بانكين سوماليا أيام كان جورجا يكون نوليد ولا شيء يكون نوليد وكاسب بولار بيا لي وأنا جاي حاسك يويل كي جاي والله سنة شري مركز أكون على كلابورا برجول وين فيلا وين كلابورا أنا أكون على صدق باور بيا اللي بدي أنا جالس كود النك كنا سا قف كيسا أكون على برواقة أكون على كنا مكان تجي وتانك تجي تقال كم نقول على ساق حي يا دو تكتب مالين نسا قف كان مش وتجي وايد وحافظه هاي ده بافده وحافظه ولا شيء بافده ولا له بافده نك هذا بافده وشق وين يستين شو مجدي تذكي دماغه أكون على سامري يعني أيام صاحك اسمه جدي بس بناك وحبان حلينا وان صاينا ما أعرف إيه ولا سيدي دار معركون ما لها لكن تكاسا دبعتاس أيه تقوتان بورصة أيه وعي قوتان دبعتوني وين وأيه صامري مجدي مركب من أنا رأس عنوي مركب دكة سيد اللي عرينا هي رقالها حق يسوي وحاول يسكر ساري بنسخة ساري سو جدي
waxaan rumaysnahay الشرعية من هذا كل علينا من أيوة حتى لو قلنا hadda for example لا درا أنت سويس أنت اللي حتى ما يستاهل ما دام السوشيال كويس تحت الرماس يقولي العلم تويس أنت waa mid la soo jeediyay ganista ayaa soo jeediyay sharciga asaga in la sameeyo maaragtay meel xarun dadka lagu haynayo in maaragtay qofkii markii dadka soo iyaga soo jeeday bay ahayd yiri marka lagu siinahayo maxaad inaad wadanka joogtid waxa lagu siinayo ku meel gaar baa lagu siinaya eraygaas ku meel gaar dadku ma fikirin mujida sababta ku meel gaar maxay tahay waxa way gadaal baad u noqonaysaa wadankaagii anagoo kale fursad markaan soo galay waxaan soo sakaan soo galay soo jeed laakiin dadku kale markay soo galeen waxaa la siiyey opportunities ayaa la siiyey joogtaan wadanka iqaamada wadanka ayaa la siiyey kabacdina waxaa la siiyey maxaad joogtaan rasmi ayaa la siiyey markaas laguma xirin lama oranin way tegi doonaan dadku xisbiga Venestra dhibaatooyinka uu keenay waxa uu keenay dhibaatada haysatay waxa keenay dhibaataas uu keenay waxa uu daanska foolka batay sababta ayaga xisbiga ugu weyn buu xisbiga ugu weyn waxay soo jeediyaan hadayna qabalina dawladdu waa dhacaysa soo jeedi ayaga ayaa hogaaminaysa ka ay maarta ka haysteen runaantii marka waxyaalaha soo jeediyeen oo badan oo la sharciyeeyay qaar waa la bedelay qaar waxba laga bedelay qaarna midaan la leeyahay for example ku meel gaar baatiin oo dadka qaar loo raacay fiirinayo la yiraahdo hey waxa weeye ku meel gaar baa awahay wadankaagina waxaan moodaa maarta waan inuu ka jiro ay ka jirto kaasa hada wadankaan gadaal kugu celinayna ayago baasaboor dhalasho istaadarta meelaha qaar markay kamuunaha tagaan waxaa la siiyaa waraaq markuu qofku macnaha ayr qaato ama qaato leeyahay waa lagu celin karaa baasaboor deenisha state board of baasaboor deenisha sharciga degan qofka deenishka baasaboor deenisha uu haysto waxa wadanka laga dhoofin karaa oo kaliya fursad waxa wadanka laga dhoofin karaa oo kaliya hadduu dambi galo dambiguna waa inuu ma dambi kasta maaha fursad hadda dowlad jibiyo telefishin meel soo qaatay ma sheekadaas maaha waxa dhaahaya haddaad baasaboor haysan leeyahay laakiin adoo baasaboor haysta waxa wadanka lagaaga joojin karaa oo lagaaga celin karaa adoo dambi qiyaasiisu intaas tahay galay wadanka waxaa kamid dambiyada qofka markuu inaa baasaboorka lagala noqon karo baasaboorka waxaa jira hadda wiilkii for example tunisiga ahaa oo biblioteca waa mooshanon waxaa la biblioteca baa loo yaqaan Copenhagen waxa weeye wuxuu saacidi jiray argagixisada ayuu saacidi jiray markaas muddo joogay ilaa iyo intaas sano ayaa wadanka lagu hayay waxa loo yaqaan tolli opportunities yani loo adkeysan karo hadda for example kuwa loo sameeyay jasiiradaha degan oo la yiri okay waxa uu dambigaanay galeen wadanka marka waa la ka saaray qofka aan dambi gelin ilaa sharcigiisa la fiirinayo oo la baarayo oo qof aan dambi kan soo jeedin laakiin haddaad dambi gashay sida argagixiso kale haddaad for example haddaad dambi waaga saan malayna hadda inaan gadaal loo raaco way mujida ma 2 sano ama 3 sano inuu yahay malaynaya dambiga lagu wadanka laga sharci u dhigan baa jiray laakiin marar badan baa la bedelay runaantii sharciga asaga dambiga aad gashay waa inuu noqdo dambi weyn dib baasaboorka laga qaadanay haddii kale baasaboorka lagama qaadan karo waxa baasaboorka laga qaadan karaa muxuu baasaboorka aan dhigina wadanka laga bixin karaa waxa weeye dadka saxiixay waxa wadanka ku joogaysan ku meel gaar ayaguna maarta dambiga iskama leh mujida waa mid hadda anigu wala weyn ma runta u galay oo maarta xataa kuwan inta dawladdan inta qabsanin kahor ayaa wala weyn u galay maarta aan isku dayay maarta dad baa ila soo xariiray oo yiri maarta aniga waxaan ku jiraa dadka Soomaaliya laga bixin lahaa wadanka 2000 iyo waxay ahaayeen 500 meelaha qiyaastay wadankana waxa laga saaray ilaa iyo 3 ilaa 4 qof marka aniga aan ka hadlay hadda dad baa laga saaray laga yaabo dad baa lagama saarin wadanka way wada joogaan wali mid la ogaadayna waxay ahayd wiil baa hadda waxa jiray laga saaray wadanka laga bixiyay oo la yiri ilaa wuxuu soo maray Soomaaliya way wiil laakiin waxa uu anu soo wuxuu ku midacay Soomaaliya aan ahay afkayga waraysa kaale waraysa Soomaaliya ku hadlay soo jeed laakiin markuu soo galay baasaboor Kenya wata Kenya geeyay oo la yiri maartay Kenya ka tirsan Kenya marka Kenya waxay rabaan Soomaaliya ma bahan moqto laga celi wala soo celiyo moqto wala soo celi marka waxa uu hadda dadka la saara dad waa la saara runaantii laakiin dadka saas loo madro hadaan dambi aadan gelinin oo ay tahay inay ku xiran tahay in haysato iqaamad ku meel gaar ah wadanka ka nabad ka dhacdo kadaal oo noqonaysa okay waxaan ku jirnaa macnaha guntii iyo gunaanadkii waxaan la soconaa in hadda xilligii doorashooyinka soo dhow yihiin maxaa ku qorshaysan maxaa ku qorshaysan horta mar walba waxba ku qorshaysan yani doorashadu wax sahlan ma runaantii dadka soo maray baa og dadka yani waxa weeye habeen maalin waxa weeye waxaad ku jirtaa yani
doorashad ku jirtaa maskaxdaadu meel kale ma jirta doorashadu yani waxa weeye mid ka baxaysa maskaxdaada maaha waxaad u baahan tahay maarta inaad dadka gaartid bulshada aad gaartid waxaad u baahan tahay bulshadu inay ku riyaaqayaan waxaad sheegayso waxaad samaynayso dadka qaar baa u haysan moo jeeda waxyaalaha aad qabanaysid ilaan isla degneed moo jeeda waxyaalaha aad qabatay inaysan muuqanin soo jeedin laakiin dad baa u jeeda moogta waxyaalahan u qabto inay muuqdaan tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaado yani waxaa laga yaabaa qof waa midda aan maalin walba run ahaantii meel hadda idinka idinku faanaya maaha yani si joogto ah ay u dhacda waxa weeye qof cabanaya oo ila soo xariira mid baa hadda laga yaabaa moogta waxaa tusaaladan ka soo qaado waxaa lagu qabtay muxuu ahaa xuduudda ayaa lagu qabtay isagoo kasoo galay waddan kasoo galay jarmalka xaggiisa kasoo galay waa loo diiday inuu soo galo isagoo xataa warqadiisa cadayna wata inuu waddanka soo geli karo garaysaa wata waa la qabtay meeshaa lagu qabtay garaysaa waxay noqotay inaan abukaatiga la hadlo waxaan la socday asbuuc dhan baan ka daba ordahay waa la xaliyey garaysaa waxaa dhici karta nin ilmihiisa laga qaaday way dhacdaan mogta qaarna nasiib belen qaarna nasiib malahan soo jeedi marka ilmaha laga qaado ay leeyihiin oo ilmahaygi meelay aadeen maba aqaanaba meel la geeyey maba ogiba garaysaa marka waxaan rabaa maarta bal inaan ogaado isla markiiba xaq baad u leedahay ilmahaaga inaad ogaatid haddii aysan jirinin waxa lagu haysta ay wax kale hadduusan ahayn inaad ilmihii dhibaato weyn aad u geysatay maaragtay dilid ama noqoto ama balaaya kaloo maaragtay aanan afkayna ka sheegi karin aad ku samaysay waxaa laga yaabaa moogtahay in maaragtay ilmahaaga aad xaq u leedahay inaad aragtid waxay noqotay in maaragtay aan qorshaha sameeyey in ilmihii lala hadlay garaysa ilmihii ay arkeen soo ma jeedin qaar baa warqada loo soo qoro waxaa la yidhi maaragtay wada shaqayntiinu aad nala shaqaynaysaan degmada aad bay u leedataa garaysaa marka saa laaligeed waxaa weye shuruudaha lagu xirayo waxaa weeye aan kaa rabnaa waxa lagu eedaynayo waxaa weeye maarata wada shaqayn la-aan wey hal samee yani waxa weye xag waxbarasho maadaama macallin aan ahay xag waxbarasho marka soomaalida iyo weliba dadka waxaan u qabto runtii anigu waxaan rumaysnahay inay yihiin wax weyn oo run ahaantii oo maarata iyaga aad u samaynaya marka doorashadu mid sahlan maaha garaysa dadkuna siyaasadaada waxaa laga yaabaa moogta qaarna inaysan fahamsanaynba siyaasadda aad waatid social democrat horta muxuu maxaad ugu sharaxanta qaarna ay u malaynayaan xataa siyaasadda marmarka qaarkood ay siyaasaddii soomaaliya kale moogta ay dhagooda ka dhawaaqaysa ma jeeda garaysa halkan waxaa weeye midda anagu aan maadaama bulshada aan ka tirsanahay golaha aan ka tirsanahay deegaanka Aarhus aan ka tirsanahay caasimada labaad ee waddanka aan ka tirsanahay waxyaalaha aan qaban karo aan saameyn karo waxaa kamid ah joogitaankayga haddaan anigu qaban karo waxyaala badan baan joojiyaa run ahaantii sharciga wax la soo jeediyo wax la damacsan yahay in la yiraahdo marka waa wax aad iyo aad runtii aad u ballaaran oo maarata aan culays saarayo marka soomaalidu hadda waa yaqaanaan run ahaantii intooda badanu waxay ugu barteenba buuggii aan u qoray dictionary-gaan oo aan qoray luqadda soomaaliga geesha uga dhigtay ay ka faa'iidaysteen garanaysaa haddana maaragtay waxyaala weyn baan maaragtay waxyaalihii anigu aan qaban jiray horta ma joojinayo sidoodan ku wadaya garanaysaa hadda bisha 16 November ayaa doorashadu ay bilaabanaysaa ay dhacaysaaba sideedaba 16 bisha November sanadkan aan ku 2021 ayay dhacaysaa doorashadu midda loo baahan yahay waxaa weeye maarta anigu liiskan ku jira social dadka qaarkood hadda marmarka qaarkood markaad fiiriso dad ban ogeynba moogta sida wax loo doorto dhibaatada weyn haysata marmarka qaarkood ama dadku meel qaladi saarayaan ama maba ogaba kanasa hadda gabar baa maalin ii timid moogta anoo waxaan ahaa maadaama bilqodkan ku jiro waxaan ahay foreman baan waxaan ka ahay meesha doorashadu ka dhacayso meel doorashada ka dhacay meelo badan baa jira laakiin meel doorashada qun hooyo kale yaan ka ahaa muxuu ahaa ayaan foreman ka ahaa doorashada maamulkeeda oo dhan meesha gabar baa timid magac wadata waxay tiri waxaan rabaa maaragtay way gashay meesha way ka soo baxday waxay tiri magacii harey meesha kuma yaalo magaca raadinaysa maxay ahayd gabar isma la yidhaahdo oo english list ayay raadinaysaa waxaan ku yiri anaa la ii yaalay markaa maadaama aan foreman ka ahay yaa dhibaatana jirto kaala sida waxalina waxaa dhigayso isma halkaan maba ka sharxanaba odaysu may ka sharxanay mise magaalo kale ka sharxanta degmo kale ka tirsanta gobol kale ka tirsanta halkaan doorashada magaceedu kuma jiro kamana heli kartid marasa marka waxaa weeye adiguna ma dooran kartid halkaana maadaama aad degan tahay haddii aad rabto inaad dooratid
وأنت عاوزت ربنا عاوزت لحظة ذاك الناس صناعة يضع دقن كبر روتشي إنه ما في دورتان ما كدت قاركون مو فاهم سنة doorashada waxay tahay دورشوا ما فاهم سنة okay marka su'aashana ugu dambaysa waxay tahay ii sheeg maxaa mujtamaca Soomaaliyeed ee degan ana gobolkan aad degan tahay kana mid ah gobolka labaad ee ugu dadban Soomaalida maxaad wacyigelin talo ama tusaale aad soo gudbinaysaa dadka Soomaaliyeed runtii oo oos degan gaar ahaan dadka oos degan ee Soomaaliyeed horumar baad samayseen rumaantii dadka Soomaaliyeed oo istagan horumar fiican ayaad samayseen markaad fiiriso laga soo 5 sano 10 sano ka hor markaad fiirisid horumar fiican baad samayseen horumarka aad wadaan ku wada horsidooda shaqada meeshaan wada bulshada waxa looga faa'iideystaa waa meel aad ka faa'iideysan kartaan xaq waxbarasho xaq muxuu ahaa shaqo markaad fiirisid xaq maartay shakhsi ahaan maartay aad garaadkaaga aad ku korsan kartid meel waxaad degan tahay nabada ayaa degan tahay meel waxaad degan tahay aad ogtiin waa taan wada idin sheegi maayo idinka waa iga badisaan ma jeeda laakiin waxa weeye anu saan soo arkaan ka hadlaya ma jeeda meesha aniga aan deganahay maskaxdaydu waxay ka fakaraysaa waxyaalaha aniga culays ka saarayo hadda farsamo doorashada markaan ka fakarayo doorashada culays ka saarayo markaan ka fakarayo ilmahayga iyo reerkayga ma ayaan ka fakarayo hadda wiil aad awoowaan noqdo maalin waxaan ka fakarayaa wiilkayga wiilkayga dhalay ayaan ka fakarayaa la marbarbu wala isoo diraa Facebook fiiri halkaan asoo hadlaya mujida hadal ma jiree waxa asoo haraaqaya mujida marka waxa weeye waxyaalaha culays ka saaraysid wadankan meel kaga faa'iideysan karto waxbarashada ka helaysa wax walbaad ka helaysa ubadkaagana waxay ka heli karaan waxbarasho fiican adiguna maarta waxbaad ka faa'iideysan kartaa marka horta waa kuwan ku baraarujinaya tan labaad waxaan kaloo ku baraarujinayaa walaalayaal maadaama anigu aan Soomaali aan ahay oo aan maartay idin matalayo markaan xisbigan social democrat aan ku jiro aan idin matalayo danihiina ayaan ka talinayaa rumaantii waa runtii taas danihiina ayaan ka talinayaa waligii anigu idinka hor istaagi maayo wax idinku faa'iido idinku jirto garanaysa idinkana sidoo kale ayaa loo baahan yahay siyaasaddu ma ahan hal qof kaliya inuu jooga adiguna siyaasadda baribaad ka qayb qaadan kartaa waa lagu garab istaagaya soo ma jeedid siyaasadda waxa weeye waxay ku xiran tahay dadka kale oo adiga ku caawinaya ma jeedid hadda dad ba saxaaba jirto mar walba aniga aliyo xaalad xagee maraysa xagee doorashada maraysa yaa maarta xagee xaalad maraysa ma jeedid marka Soomaalida run ahaantii waxyaalo badan ayaa jiro aad idinku faa'iideysan kartaan aniga adigu caawin kartaan garanaysa marka dadkiina maalintaas aad ka bixinaysaan waxaan rajaynayaa inaad ka raadisaan liiska markaad fiiriso aad fiirisaan oo aad magacayga Cali Nuur waa magac gaaban weeye Cali Nuur waa la iska yiraahdaa list ayuu ku jiraa hortiisa ayaad xariiqada saaraysaan intaas kaliya weeye muujada marka doorashada fiirinayo taasna mid aan maartay idinku mahadnaqayo haddii ay dhacday haddana dhicin qof kastoo aniga aan dooran iyo qof kastoo aniga i doortay labadaba aniga way ii siman yihiin runaantii believe me yani anigu ma kala aqaano Soomaalida anigu dad baa yiraahdaa maalmo television waxaan maqalay mid lahaye oo dadka ma kala aqaano dadka saa believe me dadka aniga yaqaan ayaa yaqaana garanaysa qof aan ama qabiilkiisa aqaano ama wax ay ka hadlayaan macna aan samaynaynin garanaysa qof waxaan ku bartaa sharafta uu leeyahay iyo dadnimada uu leeyahay inta Soomaaliya Danish kuma yaqaanan qabiilkaaga waxa shaqada kuma laha midabka kaliya lagu jeedaan imagine hadda ku jiraad muxaata qabiil ku tiraadid Danish oo kula yaabay macna ma samaynayso markaas fiirina gadaal buu wuxuu noqonahay kun sano ayuu leeyahay waxay u dhigantaa waagii maartay anigu asaas ahaan jirnay ma jiro وسام الكون اللي يلقى الفيكينج لو يلقى الفيكينج سمين شيرين أما كهر وجد أنا هو وحنا ما أعرف سيوم معهن هرمها كساب سنة كراسة مركب ولا ليه إنه دنيهن أيام ماشي بتشوفها وحن رجينا هي مركنا ما أعرفنا دورتان وحن مسكو أرك دونا هذه لا إلى سوق مقالة يعني مسكو أرك دونا أنا مرة هي أنا ما أعرف تك يعاون كرنا كنتي تك عني سين كرنا إني عني سيا هؤلاء بدن بأجره كنوهانتي waxaa jira farsamo sida dadka loogu baraarujin lahaa sidii maarta warqadahan laga qaybinayo dadka loo siin lahaa sidii loo dhijin lahaa maarta beelayaasha meelaha loogu dhijin lahaa sidii wax walba la sameeyo hadda deegaankan u jeedid ruuxaantii dhaqaale badan baa soo gala ama shirkadaha qaarkood caawiya u jeedid ama waxay leeyihiin group la socda oo la yiraahdo Bowland mujida gadaal la socda oo maalulba garab taagan ayaa jira markaas
oo la tag isaga xataa looga baahna waxaa la Soomaalida inahay garab istaagaan oo macnaha ay sheegay walaalkood hal garab istaagaan oo ka mid noqdaan dadkaas anigu waa mid aas way dadku saasay yihiin mujaahidiin ku baraarugsaneen u malaynaysan deegaanka in aan la caawinin maya meesha walba u baahan tahay in la caawiyo u baahan anigu ma u baahan waa ku mahadsan tahay barnaamijkan aan nagala soo qayb gashay iyo warbixinta muhiimad aad siisay macnaha shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Denmark waxaan maleynayaa muuqaalkaaga inay daawan doonaan dadweyne aad iyo aad u tiro badan waxaan ku rajaynaynaa wixii Ilaahay khayr ku jiro oo ummadana dan u ah inuu Ilaahay ku waafajiyo halkaan naga daawanaysa waa Dansan TV kulan dambe oo khayr qaba iyo barnaamijyada kale waxaan leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.